السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعان وناكسن داودة كنا سودو مقال xiisa leh muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa askari u dhashay dalka Japan oo dagaal socday muddo gaaban uu isagu u socday 30 sano oo xiriir ah sheekada ninkan waxay ku dareensiinaysaa daacadnimo adkaysi dadaal nafurnimo iyo wadaniyad sax ah ku soo dhaw muuqaalka oo dhameystiran Onoda Hiro waxa uu ahaa askari ka tirsan boqortooyadii Japan inta aan la jabin dagaalkii labaad ee dunida waxa uu ku dhashay magaalada Kainan lagu magacaabo ee dalka Japan 19 bishii Maarso sanadii 1922 ilaa laga soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka Onoda waxa uu ka soo shaqeeyay shaqooyin kala duwan isagoo noloshiisa caadiga ah iska wata 26 bishii December sanadii 1944 ayaa waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii dalkiisa lagu soo qaaday waxaana loo diray jasiiradda Lujban la yiraahdo oo waqtigan ka tirsan dalka Philippines Onoda wuxuu markaasi kadib ka mid noqday ciidamadii sirdoonka ee boqortooyadii Japan waxaana uu ahaa nin caan ku ah oo si wanaagsan u yaqaan dagaalka duurka iyo ku noolaanshiyaha nolosha adag ee kaymaha Onoda waxa uu ahaa nin daacad ah oo amarada si wanaagsan u qaata waxaana uu ku taagnaa amarkii taliyihiisa ee ahaa si aad u joojisaan dhaqdhaqaaqa cadawga uu ka wada jasiiradan wax kasta waa inaad sameysaan marnaba ma dhici karto inaad isdhiibtaan xitaa haddii aad naftiina ku weyneysaan Onoda waxa uu ka mid ahaa ciidamadii ugu horreeyay ee jasiiradan ka dagaalama marba marka kasii dambeysana tirada ciidamada ee jasiiradda ku sugan waa ay sii yaraanaysay kuwa way dhimanayeen halka kuwa kalena dagaalka lagu qabanayay maalintii dambe waxa uu ku waabariistay Onoda isagoo ciidankii oo dhami ay kaga soo hareen afar ciidan oo kaliya sidaas darteedna in ay tiradaasi ku galaan dagaal foolka fool ah aad bay u adkayd afartii iyo shantii maalinba way aag bedelanayeen wayna ugaarsi tagi jireen si aysan gaajo u dilin Onoda iyo asxaabtiisii waxay fuuleen buuraha deegaanka oo roob aad u tiro badan uu ka dii jiray taasina waxay u sahashay inay muddo dheer hal meel deegaan ka dhigtaan muddo ayaa ka soo wareegtay 4 sano ayaana laga joogaa dhamaadka dagaalka adduunkiina nabad ayaa ka dhacday Onoda iyo asxaabtiisana noloshooda ayay la daala dhacayaan inkastoo xilligaasi isgaarsiintu ay ahayd mid kooban Japanka iyo Mareykanku waxay moodayeen in wali ay duurka ku jiraan ciidamo uu ka mid yahay Onoda waana xaqiiq waxaana duurka loogu daadiyay waraaqo loogu sheegay in dagaalku uu idlaaday balse Onoda hadalkaasi ma uusan rumaysan isagoo isiri Mareykanka ayaa rabay inay idin shirqoolaan muddo kadib ayaa waxa isdhiibay saaxiibkiis Akatsu oo ka mid ahaa askartii duurka kula noolaa Onoda markii uu arkay saaxiibkii oo isdhiibay isla markaasina si wacan loo soo dhaweeyay wuxuu markiiba u qaatay in cadawgu uu heshiis la galay hayeeshee markii uu isdhiibay Akatsu waxa uu ogaaday halka ay marayso iyo in uu idlaaday dagaalkii sanado badan ka hor Akatsu waxa uu ka warbixiyay sida ay saaxiibadiis wari ugu maleeyaan in uu dagaalku socdo waxaana lagu bixiyay dadaal badan sidii loogu sheegi lahaa dhamaadka dagaalka labaad ee adduunka si loo qanciyo askarta buuraha ku sugan diyaarado iyo helikobtero ayaa waxay warqado ay ku sawiran yihiin rag ay saaxiibo ahaayeen Onoda iyo qoraalo sheegaya dhamaadka dagaalka ay ugu daadiyeen duurka balse Onoda waxa uu haystay in wali la shirqoolayo taariikhdu markay ahayd 1954 ayaa dagaal ay galeen toogasho lagu dilay mid kamid ah saddexdii askari waana saaxiibkood Shimaha muddo toddobaad ah kadibna waxaa duurka iyo buuraha loo maleynayay inay ku sugan yihiin waxaana lagu rakibay sameecado iyo cod baahiyaal oo lagu leeyahay Onoda Kasuki dagaalkii waa uu dhamaaday ee soo baxa Onoda dadaalkaasi oo dhan waxa uu haystay shirqool cad oo Mareykanku maagan yahay sababtoo ah saaxiibkiis Shimaha raggii dilay bileys deegaanka ay ahaayeen Onoda iyo saaxiibkiis waxay weli rajeynayaan in ciidamada Japan ay u imaanayaan oo gacanta ay ku dhigaan jasiiradda Lujban ee Mareykanka uu haysto sida malahoodu ay tahay sanado badan ayaa waxa laga joogaa dhamaadkii dagaalka adduunka weli duurka ay ku jiraan Onoda iyo saaxiibkiis iyagoo halkaasi ka wada weerarada yaryar ee ku dhufada iyo ka dhaqaaqa loo yaqaano iyo gubista beeraha bariiska sanadkii 1959 Onoda reerkiisa waxay ku qanceen in wiilkooda uu dagaalka ku dhintay waxayna u sameeyeen qabri inta aysan taasi dhicin ka hor ayaa waxa la keenay Onoda walaalkii waxaana uu mikrofon ugu sheegay walaalkii inuu dagaalkii dhamaaday hayeeshee wuxuu mar kale ku fikiray in uu yahay shirqool uu Mareykanku maagan yahay waxaana isiri waana mid reer Japan ah oo walaalka u codeg oo ay soo qafaasheen qasabna kaga hadal siinayaan sida uu aaminsanaa Onoda inta uu ka dhimanayo qofka ugu dambeeyay ee reer Japan ah dagaalku wuu soconayaa weligiina isma dhiibayo qof Japan u dhashay sanadkii 1965 ayaa Onoda iyo saaxiibkiis waxay soo dhaceen raadiyo si ay ula socdaan xaaladda dibadda duurka waxaana markii ay shideen raadiyaha ay ka maqlaan barnaamijyo tartanka fardaha iyo duni ula muuqatay mid aanan dagaal ka jirin iyagoo sugayay inay maqlaan hadalladii iyo khudbadihii ciidamada oo markii ugu hordanbeysay ay ahayd 22 sano ka hor wali waxay maskaxda ku hayaan waxaan oo dhamay waa dabin la idin ku tala galay waxayna iska sii wataan dagaalkii ay wateen waxa la joogaa sanadii 1972 dagaalkii labaad ee adduunkana 27 sano ka hor ayuu idlaaday
adduunkuna horumaro iyo isbedelo waaweyn ayaa ka jira. Si kastaba ha ahaatee halgankooda iyagoo wata ayay maalin waxay isku dayeen inay dab qabadsiiyaan meel kayd bariis ahayd. Si kastaba ma aysan u suuragelin inay qorshahooda fuliyaan, maxaa yeelay waxaa kusoo baxay ciidamo ilaalo ah iyagoo bariiska gubaya. Waxaana meesha uga dhintay saaxiibkii Onoda ee loo yaqaano Kusuki. Onoda ayaa baxsaday, ha yeeshee wuxuu ku fikiray in uu kaligiis ku dhinto jasiiradda isagoo dagaalkiisii ku sii jira. Gaajo iyo darxumo ayay daris noqdeen. dabka waxa uu ka shidan jiray dhagxaanta la isku xoqo. Cunto waxa uu ahaa qaraabka, geedka bambowga caleentiisa ayuu dhar u xiran jiray. Laastiigyo iyo jaqafyo uu soo urursadayna hooy ayay u ahaayeen. isla sanadkaa waxay buurta ku kulmeen arday dhalinyaro ah oo buurta ka dhistay teendho ku meel gaar ah, meeshana isaga dalxiisayay. Muddo markii ay wada deganaayeen ayay saaxiibo noqdeen. Shizuku ayaa la yiraahdaa inanka magaciisa. Onoda waxa uu uga sheekeeyay wax walba oo dunida ka jira iyo xaaladda Jabaanta cusub. Si kastaba ha noqotee, Onoda weli ma uusan rumaysan Shizuku, waxaana uu ku yiri, waxa kaliya aan kugu rumaysan karaa waa inaan arkaa taliyahayga igu amray inaan dagaalamo. Magaca taliyaha ayuu u sii raaciyay Shizuki, waxaana uu u sii raaciyay isaga oo kaliya ayaana aaminaya. Shizuki meesha uu ka tagay wuxuu Onoda u ballan qaaday inuu soo helay General Hiroshima. ugu dambeyntiina General Hiroshima ayuu soo helay 9kii bishii Maarso sanadii 1974 ayay taariikhdu maraysaa. Onoda oo diif badan ay ka muuqato markii uu arkay taliyihiisii, markiiba salaan ayuu la istaagay isagoo faraxsan, halkaasna uu isku dhiibay. Onoda asigoo 23 sano jir ah ayuu dagaalka ku soo biiray. Maalintii uu soo dhiibay waxa uu jiray 53 sano. Onoda iyo Shizuku waxay noqdeen asxaab muddo dheer ah. markii uu soo dhiibay Onoda waxa uu durba ogaaday in loo haysto dilka 30 askari iyo bilays reer Philippine ah iyo dhaawaca 100 ruux oo shacab iyo ciidanba isugu jira. Ha yeeshee madaxweynihii dalka Philippine Ferdinand Marcos ayaa cafis u fidiyay Onoda maadaama uu sheegay kaliya inuu fulinayo amarkii taliyihiisa. ugu dambeynna Onoda markii uu dalkiisa Japan ku laabtay si weyn ayaa loo soo dhaweeyay, waxaana uu gudoomay bilad geesinimo. Nolosha dunida ku cusubna halkaasi ayuu ka sii watay. Askarigani 30 sano dagaalka ku jiray waxa uu dhintay sanadii 2014. haddii aad daawada nagu cusub tahay, fadlan subscribe channelka si sheekooyin noocan oo kale ah aan idinku soo gudbino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.